wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Ali ayaa safarkiisii labaad ugu kicitay dalalka dariska ah ee Geeska Afrika. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa wuxuu booqasho rasmi ah uga bilaabatay dalka Kenya isagoo magaalada xarunta Nairobi ku tagay tan iyo markii loo doortay hoggaanka dalkaasi. Diyaaradii uu la socday ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia ayaa soo dhigatay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Jomo Kenyatta International Airport 4:00 galabnimo ee shalay markaas ama xalay xilliga Geeska Afrika, waxaana halkaas ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda iyo ganacsiga ee gabadha haweeneyda loo yaqaan Monica Chuma, wasiirka shaqaalaha Ukur Yatani iyo gudoomiyaha magaalada Nairobi Mike Mbuvi Sonko. Afayeenka madaxtooyada dalkaasi Kenya ayaa hadal khaldan ka sheegay furitaankiisa soo dhaweyntii ra'iisul wasaaraha, isagoo sheegay in ra'iisul wasaare Ahmed Abiy uu yahay markaasi dalka Kenya uu yahay safarkii ugu horeeyay dibadda ay ugu soo ambabaxo uu doortay Kenya, balse wuxuu leeyahay in ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed Ali uu safarkii ugu horeeyay ku tagay Jamhuuriyadda Djibouti ee magaalada xarunta u ah Djibouti, waxaana kulanka labada hogaamiye ay yeelan doonaan waa madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo Abiy. waxaa la yiri diiradda lagu saari doonaa arrimaha dhinaca amniga gobolka iyo horumarka dhinaca ganacsiga, isdhexgalka iyo isfahansiinta. Sidoo kalena waxaa hareer doona baa la leeyahay dhacdooyin iyo qalaalase ka soconaya xuduudda labada dal, gaar ahaan degmada Moyale ee xuduudda labadaasi dal waa Kenya iyo Ethiopia oo qowmiyado kasoo kala jeeda dalalkaasi ay isku hardamayaan, isku laynayaan.